aynu ka gudubnay. berbera waxay noqonaysaa main distribution base halka laga qaybinayo kalluunka, xarunta ugu weyn ee kalluunka laga kala dirayo ayay noqonaysaa. wholesale debate waxa weeye waa halka wholesale-kii laga qaadanayo dee kaydkii weynaaye ee laga qaadanayay, halkii laga dirayay oo airportkii berbera laga faa'iidaysanaya, haddii by air wixii lagu dirayo xaggaasaa laga dirayaa. cold storage waaweyn oo meesha laga dhisayo, halka lagu habeynayo processing lagu sameynayo lagu habeynayo kalluunkuna berberay noqonaysaa. bahalahan plotlinka waa baalka yar bacda yar burburta maaragtay alaabta lagu baagareeyo, kalluunkana waa lagu baagareeyaa, barafkana waa loogu ridaa, qawgana waa haynaysaa. waana meesha lagu sameynaya mashiin meesha ku sameeyaa lagu xidhaya oo bahalahan soo saara oo buufiya ya. okay markaa waxaa kaloo lagu darayaa baalidii barafkii oo kaa hore usoo sheegay, iyo gawaadhidii lahayd talaajada oo inta badan ay tahay suuqgeynta Ethiopia, iyo qaar kale oo iyaguna badan magaalooyin kala geeya. markaa halkan wuxuu kuleeyahay waxaan isku daynaa, waa iska fikrad, waxaan waa suggestions wax laga bedeli kara any minute. twice inaanu geyno Dubai, 3 jeer inaanu geyno Djibouti, mar inaanu geyno Jeddah. From Dubai. Yeah. Twice a week from Dubai. wuxuu ka wadato Dubai uga wadato Dubai. Dubai baa la geenaya, Dubai lanoga keeni maayo kalluun. From kalluunku saddexdaa nooc buu noqonayaa. waxa weeye whole fresh fishku oo chilidka waa kii aan sheegay inta ku jirta laga tuuray soo iska dhana maysan waxba laga tuurin baa barafku ku dhex jira. waa kan hadda suuqa markaan tooni ka soo iibsano magtale inoo jarjarada ee barafka dhex yaala, kaasoo kale waa asaasi ku iibina. noocyadiisu waa ka ya tuna yellow finkaasaa kamida, skipjaga kamida, oriental albacoreas kamida, black eye kamida, kingfish baa kamida. adu waa gurubada gruberka, octopuska iyo qaar badan oo badan. ama waa play oo waa isna waa chilled, waa fresh, laakiinse waxaa laga saaray laftii waa hilibkii oo saafia oo ka qaalisanaanaya. saliidun baa loo la saaraya daawaha isaga toos uma baahna in la sameeyo. kan premiumkuna wuu kasii fiican yahay, wuu kasii habeen fiican yahay, aad u habeen fiican yahay. markaa kan hoosaa ugu qaalisanaanaya. marka waxaa lagu baagareynaya meeshii baalihii inta hawada laga saaraya, saa lagu xidhaya dhag ya baala fresh, barafkiina waa lagu riday, baalaha ku dhex jiro. waa yahay lobsterka isagoo nool baa lahaynaya. baalki maxaa ohan jiray libaax badeedka isaga waa la qalajinaya. face two-ga waxaa kaloo ku jiray buu yidhi low value fish uu kuleeyahy inta la qalajiyo oo la process gareeyo in loo dhoofiyo export ahaan, si waxaa u cunaya kalluumada kala la siiya. kalluumadan dee la dhaqe ayaa cuntooyinkiisi ayaa laga sameynaya kuwaana. waa waxaan markaa dadku aan marketka dadku aan consume gareynayn, iyagana pallets baa laga sameynaya, bahala yaryar oo la qalajiyey markaa oo la diraya si cunto ugu noqdo kalluumada kale. waayo hadda waxaan soo gaadhnay suuq geyntii. Somaliland waxay ku qiyaaseen 3.5. Ethiopiana waa 85 milyan oo qof. okay export lisankii waa in progress, waa beri hore markaas waqtiga la qoray waxa weeye 2013 markaa imka waxa weeye gacanta lagu haya qiyaastii. markaa Somaliland iyo Ethiopia laga iibinaya air freight wholesale-ka carabta la geenaya Sacuudiga iyo China. ya markaa China wuxuu cunaagu kuleeyihiin statisticsku waxay sheegayaan 50% kalluunka lobsterka adduunka inay u isticmaalaan. magaas waa la xagaysteen. markaa kaasina waa quality-gayga wuxuu noqonaya brand building-gayga wuxuu noqonaya saasaan noqonayna buntis maalinkaas ayuu ku kalluunkayga aan ku hirgelinaynaa buu yihi magacaas ayuu brandkayga noqonaya, sumadayadu sumada kalluunkooda.
kan waa qiimeyn ay berigaa kasoo qaadeen waddanka gudihiisa kalluunka inta la kala siisto wholesale-ku wuxuu siiyaa waa kaas whole fish xabadda dhan marka la kala iibsanayo $1 iyo maxay 20 centi 30 centi hol marka kale oo iibinayo retailku kuwa yaryar si ganacsatada hoose $2 buu siinayaa markuu fleetki yahay ee laga saaro lafta na wuxuu tegayaa $6 buu tegayaa ya marka nimankaas sameeyay la yiraahdo Shuraako ayaa sameeyay nimankaas sameeyay okay halkan hadda wuxuu ku leeyahay baahida si uu korayso baahida kalluunku berbera oo kale waxaa lagu cuni karaa buu leeyahay isagu 350 tan ayuu qiyaasanikiisa kan qoray way ka badan kartaa ama ka yaraan kartaa burco 350 halkaa kale aan khalad baarka inay ku jirto sababtoo wax weeye burcayo berberiimka isku dadba ma aad u kala dad badan yihiin burco aad baa loogu badan yahay laakiin isagoo waxaa laga yaabaa inay berbera ka qiyaaseen markay dhaqaaqdo dhaqaaqdana definitely berber buu hargeysa burco ka dad badnaataa dhici kartaa okay hargeysana wuxuu ku qiyaaseen 500 tan sanadkii in baahidoodu noqon karto ninka 50% waxay ka yimaadaan xamar kalluunka lagu cuno hargeysa saddexdii magaalo markaa intaasuu ku qiyaasay kani waa iibintii kalluunka waayahay waa ka sanadka koowaad iyo sanadkii labaad ilaa kii lixaad ayay waxay sameeyeen waxna waa projections waa wax lasii qiyaasay way ka badan karaan way ka yaraan karaan allahu yaclam warasuulu laakiinse waxa weeye waa un saadaar ay sameeyeen nimankan aqoon-yahankii marka inta la iibin karo sanadkii ayay qiyaaseen sanad koowaad 91 tan in la iibin karo waa targetka company siduu doonayo sanadka labaad inuu iibiyo 512 tan sanadka saddexaad 1414 ka afraad 2000 iyo dheeraad ka shanaad 3000 oo dhow ka afraad ka lixaad inay iibiyaan 4 tan oo kalluun ay iibiyaan marka waxay ku qiyaaseen markaa capacity-ga inta ay awoodda ay leeyihiin sanadka hore waxay isticmaaleen awooddoodii 100% eber ka labaad sanadka hore wax badan ma qabanayaan company-gu wuxuu dhisayaa meel iyo kalluumaysi badan ma wado company-gu sanadka hore moogtay marka sanadka labaad 100% bay isticmaaleen ka labaad 2 3 4 5 da oo potentiality kuwaasi laakiinse iyagu waxay ku qiyaasayaan markaa kalluunka 80,000 oo tan inuu yahay kalluunka lala bixi karaa moogtay marka waxay la bixeenna waa maxay waa 5% markay gaaraan ay gaaraan 6 sanadood ka bacdi dooniyuhu 4 bay ka bilaabmeen waxay ku dhamaadeen 50 meelaha lagu iibin doono ay ama xarumaha u dhisi doonaan waayo mushkiladda kale waxa weeye dadkii ilaa ay bartaan ma dhisanayaan meeshii lagu iibinayay kalluunka meel special u baahan lagu iibiyo oo dukaan caadi la iskama geyn karo oo wuxuu budaacadaha kale kaga duwan yahay meeshii lagu iibinayna waa in la dhisaa oo qawowgii loo dhisaa oo hab gaara loo dhisaa marka kolley iyagu waa in u bilaabaan hadhow dadku markay iska bartaan iyaga iska dhisanaya mawtiga marka kaana waa kaas ilaa iyo 6 bay gaarsiinayaan dadka shaqaalaha 30 waa madaxdii iyo maamulkii iyo engineerskii waxay ku dhamaanayaan 6 sano 300 hadhow oo ay ku jiraan kalluumaysatadii iyo wax waliba waayay kalluunka iibinayaan waxay ku qiyaaseen qiyaastii marka kuwa kalluumaysiga kalluunayaashu kalluunka toos u iibin karaan markay soo saaraan sanadka hore 120 ka dambe 600 iyo ka kale 1800 ka afraad 2700 ka shanaad 3800 sanadkii lixaad inay iibin karaan 5,000 iyo inta 5 milyan iyo 100 iyo waa milyan lacagtaasi waa milyan isuu lacagtaasi lacagta waa milyan ma arkaysan haddaan fadhiisto waay waxaan doonayaa inaan idinku yarto su'aalkan aan idin xoogaa idin kuwan markaa waa lacagtii waa kuwa kalluumaysigu ay toos uga iibin karaan ciddii ka iibsanaysa kana waa kuwa wholesale ku iibin karaan online-kaasi ya jumladalayaashu ay iibin karaan kana waa kuwa carabta laga iibinayo wholesale ahaan laga iibinayo ya kana waa retailka
ka xabadda tafaariiqda u iibinaya dukaamada yaryar ku iibin doonaan. marka waxay ku qiyaaseen halkan casaankani waa kalluunka dib usoo noqon doona ee aan la isticmaalin oo kale, waxay ku qiyaaseen oo kale ama khasaare ama xumaanay ama aan la iibsan oo kale. marka waxay ku qiyaaseen 6 sanadood ka bacdi inay iibiyaan 13,566,860 inay iibiyaan, ay ku qiyaaseen 6 sanadood ka bacdi kalluunka iibinayaan intaa noqdo. halkani waa noocyadiisii, kaasi waa kalluunkii dhammaa, kana waa fileedkii oo 2 qaybood oo kala jaada number 1 iyo number 2 bixiyeen, iyo premiumka oo kii ugu fiicnaaya. waa kuwa markaa graafkoodu saa u kala sarreysiiyey, marka iyaga qudhooda pricekii kiilooga tusinay, kana markaa ugu fiican premiumka markaa wuxuu gaari karaa ilaa iyo $10 kiiloogiisu markaa waxaa ugu yarnaa qiimaha kan quriis uu kacayaa waa kan $5 buu gaadhsiiyey marka dambe, kan $5 buu gaadhsiiyey. kan halkan markaa waa sida u kala noocyadii kalluunka 4 nooc sida ay kala noqonayaan sanadka koowaad ilaa sanadka 6aad waa kuwa tanna waa lacagtii inta ay qiimahoodu noqonayso mawtay. marka wuxuu ku gaadhayaa matalan kaa cagaaran oo ah kifleygii wuxuu gaadhayaa 6 milyan iyo dheeraad ilaa 6 milyan iyo dheeraad buu gaadhayaa. kan kale casi wuxuu gaadhayaa ilaa iyo 6 milyan. kan kale buluukiga uu mariyay oo kii xabadda dhan ahaa inay iibiyaan ilaa 5 milyan wax ku dhow. kan premiumka oo ka ugu yar iibka ah isna inuu gaadho wax 2 milyan ka yar baaban. marka saas ayuu noqonayaa iibkiisina, waa iibka iyagu markaa ay beegsanayaan inay samayn karaan oo beegaal waxaasi. waa kan markaa lacag ahaan leenkan sare waa wixii ay iibiyeen, kuwan casaanku waa kharshiyaadkii baxay ay ka mid tahay soo saarista. leenkaasi waa soo saaristii leenkaasi, kana waxa weeye mushahaarooyinkii, kana waxa weeye lacagta depreciation ku dhacayo oo wixii lacagta naaqsaada ku imanaysa, iyo kan kalena waa cashuuraadkii. markaa deetana macaashkii wuxuu noqonayaa nadka waa kuwa waxay ka bilaabeen sanadka hore khasaaray ku jiraan kamanigu, waayo waxa ma soo saarayaan oo faa'iido ma leh. markaa ka labaad oo 215,000 1 milyan, iyo ka saddexaad ka afaraad 1,400,000 bay gaadhayaan. ka shanaad waxay gaadhayaan 2 milyan iyo intaas. ka lixaad 3 milyan iyo 275 ayay noqonaya faa'iidada kamanigu. waa sidaa imka siday iyagu qiyaaseen. kani waa kamaniga qiimahiisi si isu bedbedelayo. markaa kamaniga qiimihiisuna halkii ma taagnaanayo, wuu kacayaa dee mar walbaba. markuu kamanigu faa'iido soo saaraba sheeriskii markii hore matalan imka waxaa halkan sheeriska la iibsanayo waxaa ugu yar baa $1,000. $1,000 micno waxa ka dhiganta waa 1,000 sheer. halkii $1 waa 1 sheer waa 1 saami. markaa kunkaas saami $1 joogay hadhow adiga waxaagi way isbedeleen. markuu kamanigu valueskiisu kacaba sheerkaagii $1 waxaa laga yaabaa inuu 20 gaadho 30 gaadho saa u socdo saasay u qiyaasayaan. waa kan markaa valuationkii lagu sameeyey sanadkii 6aad kamaniga qiimihiisa wuxuu noqonayaa 5 milyan baa kamaniga la invest gareeyay. markaa waxaa marayaa imika 34 milyan buu marayaa 5 milyan xagaas maraya 32 meelahaas maraya 32 milyan buu marayaa mugti halkaas taagan meelahaas maraya. okay, investorsku waa kan qofkii lacagta invest gareeyay. marka waxyaaba very interesting ee uu sheegay maxamed yuusuf dadku dhiirigeliyay runtii isagu projectionkan iska ay sameeyeen sanadka saddexaad qofkii 10 milyan $10,000 qofkii invest gareeyay kamaniga ayaa halkan xisaabtan ku shaqeeyeen. marka waxay yiraahdeen sanadka koowaad waxa ma soo noqonayaan, ka labaad ma soo noqonayaan, ka saddexaad inuu 5,000 lacagtiisa helo, lacagtiisa ugu jirta. ka afaraadna inuu 5,000 helo lacagtiisa oo 10,000 ugu jira. 10,000 waxay marayaan sanadkii 6aad 30.
milyan bay u marayaan 10kiisi kuna reer u qaatay ninkii oo markay sidaa u shaqeeyaan uu soo sharxay kamanigu wax ya marka halkan haddaad eegto halkaa wuxuu faa'iiday qofkii ya investmentkiisii 370 boqolkiiba waad ka tagtay waxaad maraysaa 370 boqolkiiba inaad faa'iiday For how long? six years halkan halkaa waa year six waa ka halkaa ku yaala waka eeg 10 kun halkaasay qiimaha uga marayaan waa kan actually 10 kun halkaasay marayaan 6 sanadood 6 milyan baad 6 kun baad haysataa halkaa 10 kun adigu aad ka iibis karaysay oo weliba 10 kun lacagtaadina way soo noqotay ilaahay ka dhigo weliba anu waxaan ilaahay ka baryaa ma aan filayaa inay intaa ka badanayso waayo iyagu ma doonayaan inay qabsadaan protection aad hadhow ay dadka iskaga war imaadaan waa halkii ugu hoosiisay ay qabsadeen marka wuxuu ku maamahay maalin uu ka sheekeynayay bisroolka maan gelin buu yidhi haddaan garanayo haddaan aqoon u leeyahay kalluunka buu yidhi oon ogaan lahaa buu yidhi investment kalluunka lacagteeda dhan kalluunkaan gelin lahaa buu yidhi ya waayo isaga ka hawl yar waayo risk badan male kalluunku khasaaro badan ayaanu lahayn haddii dee dad aan aqoon u lahayn marka dhibaatooyinka had iyo jeer innaga nagu dhaca kamaniyadeenu waxa weeye dad aan aqoon u lahayn ayaa dadka odhanaya waxbaanu samaynaynaa anugu kamama soo qaadayo qofku inuu dadka dhacayay wixii aanu khibrad u lahayn isla markaa aanu shaqaalo khibrad ulana aanu u qoran ayuu wuxuu doonayaa inuu dad intuu lacag ka ururiyo wixii socdaan dee wax suuragala maaha marka maxamed yuusuf wuxuu garaystay nin 20 years ka ahaa manager company weyn oo fishing company Ireland oo Irish ayaa waxaan oo dhan technicalitieskan oo dhan iyo waxaan oo dhan manage gareynaya ilaa iyo inta ay ka baranayaan dadkii Soomaaliyeed la shaqeynayay dee managementkii kale ya waxaad kale waxaad qof indhalo oo dee dhex ordaya maartay guri mugdiya nin dhex ordaya oo waxbaan qabanaya waa yar waali weeyaan moogtay marka waxa weeye lacagta investment waxa ku jira shaqaalo qaar siyaasad ahaan bay ugu jiraan ninka managerka ee meesha dhan doonayay inuu inuu albaab u furo suuqa ya nin ingiriis nimankan ya marka waxa soo dhan lacag wuxuu bixinayaa in ay waxaan hirgalaan oo ay cagooda isku taagaan hadhowna inagu mar haddii waxaan cagaha isku taagaan aad haasho barto adaa maamulan karaya waa adiga kartida iyo dadnimada runtiina maxamed yuusuf waa nin khibrad u leh axmed baydi ka sheekay waa nin khibrad u leh oo kabaniyada noocan u rees karaya ingiriiska u sameeya system kan inagu inoo sameynayo waa system uu ku shaqeeyaba oo kabaniyadu ugu rees karaya fanka oo saa ku abuurmaba ingiriisku leeyahay marka dadku wuxuu ka fikiray dadkaagiina wuxuu tar khayraadkii wadankana wax soo saar aad iyo aad baa u mahadsantihiin kolley qaybtan dambe ka sheekeynaya waa qaybta ugu caajiska yar badan leh marka la qoro alagorada miska afraaba la xisaabaadka waxa marka la qoro waa lagu yar caajisaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida wanaagsan aad noo dhegeysateen waxaan jeclahaynaa in aa ku qanacdeen warbixinteedii idinkuna kusoo dhiirataan dadka kalena gaadhsiisaan in aa ka qayb qaadataan kambaniga Pontus Marine. Wassalaamu calaykum. oday Ismaan Xuseen Abukar oo ka mid ah odayaasha kambanigan hogaaminaya sida uu ugu faahfaahiyey safarkiisa iyo socdaalkiisa iyo kambanigan sida dhaqaalihiisa looga helayo iyo horumarkiisa aad iyo aad ayuu ugu mahadsan yahay waxaana ila tahay dadka reer Finland halka yimi ay wadiyadu u yimaadeen shirarkaas iyo kambaniga iyo tijaaridan ila soo doontay inaanu ka qayb qaadan doono tubada active rumada sheerku siduu baxayo iyo barnaamijyadu qaabka u baxayaan iyo waqtigu goortu bilaabmayo iyo waqtigu soo afjarmayo odayadii ku celin doona hadalka oo wali inoo sii wadi doona laakiin waxa ku goorin lahaa odayaashu kolley tijaarida bay la soo doonteen waana ka qayb qaadanaa tijaarida waxaan kusoo dhaweynayaa mar labaad maxamed diiriye axmed diiriye liibaan oo ka mid ah weli odayaasha kambaniga hogaaminaya بسم الله الرحمن الرحيم كلي دراسات بالينو soo bandhigay laga yaabo in qaar badan oo inaga mid ah la yaabanaan figures kan iyo waxan
waa qaabka kambaniyadu de marka la doonayo in la registareeyo kambanigii dadka loo bandhigo waa qaab cilmi oo loogu bandhigo waxaan filayaa qofkii u baahanaa website-ka ayuu kambaniga ayuu geli doonaa puntismarine.com marka halkaasuu wixii information ka baxsan kan ka raadin doonaa waxyaabaha qaar waa saadaasha waxaa lagu baysgareeyey بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين reer finland temporary baan ku ahay anigu reer ingiriis baan ahay qoladanna barnaamijka wadatana aad baan xoogogaal ugu ahay barnaamijkani waxaad moodaa horta dalka laga launch gareeyay markii u horeysay waxaan filayaa finland inay halkii ugu dambeysay yurub ay tahay khaliijka waa laga launch gareeyey soomaaliya waa ogtihiin coastal area xeebta ay leedahay soomaaliya waa ogtihiin oo maraykan baa berigii la odhan jiray qaarad baa la helay ayaa gool rush bay u bixiyeen oo waa lagu yaacay soomaaliya xeebteedii waa ogtihiin waxa keenay budhcadbadeed iyo waxa keenay waxa maanta ka taagan waxa weeye kalluunkaa la boobaya ee yurubta aynu la joogno ayaa soo gurata oo supermarketyadooda yaalla ilaahay qaniimad ayuu meesha dhigay aan soomaaliduna dhaqanna u ahayn aanay aqoonin farsamana aanay u aqoonin dadka la baraa la yidhi berigii kacaankii baan xasuustaa la yidhi hilib lama qali karo wiigii 2 casho mamnuuc si kalluunka hala cuno in la sii waday tii oo dadka la baro bahalka oo bal hilibkan aynu ku horeynayno dib loo dhigo nimankani qoladan sharikadan Puntismarine runtii waxaan oran karaa waa fursad loo baahnaa businesskuna guud ahaan 3 R hadduu helo baa la yidhi 3 R's was successful right time right product or service iyo right place waxaad moodaa 3dii R bay inay isugu hagaageen right product right time right service or product ama right time maanta waa ogtihiin ilaa China ayaa Fariiskoo dhan baa soo rashgareeyo gurta baalkeeni tuunadana meelaha ugu quality wanaagsan waliba laga helo xeebaheena marka waxa weeye ma aha kalluunkii oo qura area shrimpiska lagu dhiqi karo oo aan tides iyo waves iyo current iyo maayad iyo waxba toona lahayn ma naqaano shrimpiska carsaayeen u naqaanayo waxa khayraad badan baa meesha ku jira dadkii in loo baahnaa ayay sharikadani timi waxaan ku shajicinayaa dadka reer Finland especially intiina nimka joogta inta kalena idinka gaarsiin doona in ay ka faa'iideystaan fursadaas oo ay maalgashadaan tuba taagti uu rugmanaya ninba intuu awoodi karo ku galaya halkan dumarkii mala lama soo marti qaadin bahashana lacagtana dumarka imika hayaba dumar badanina ma joogaan marka bal sidaa u gaarsiin lahaydeen fariintaa u gudbin lahaydeen waa mid meesha ku jira oo laynooga fadhiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته